Degdeg foolkaanaha ka dhacay Itoobiya ayaa sababay daruuro dambas ah oo aad u weyn oo cirka isku shareeray, iyadoo dadka deegaanka lagu wargeliyey in ay taxadar muujiyaan. Khubaradu waxay qiimeynayaan khasaaraha iyo saamaynta deegaanka ee ka dhalatay qaraxa. Wararka Al Jazeera iyo AFP waxay sheegayaan foolkaanaha ka dhacay xuduudda Itoobiya iyo Ereteriya ayaa cirka u diray daruuro dambas ah oo aad u xoog badan. Khubaradu waxay sheegayaan in qaraxani yahay kii ugu weynaa ee gobolka ka dhaca muddo aad u dheer. Dadka deegaanka ayaa lagu wargeliyey in ay ka fogaadaan aagaga saamaynta leh, halka hay'adaha gurmadku ay qiimeynayaan xaaladda. Waxaan idiin soo gudbinaynaa wixii war ah ee ku soo kordha. Ila soco wararkeena kale ee East African Mindset si aad u hesho warar degdeg ah iyo warbixinno muhiim ah.